shirkadda weyn ee qaabilsan daabulidda xamuulka badda ee Mareykanka ayaa sheegtay in si ku meel gaar ah u hakisay aqbalaadda shixnadaha cusub ee ku socda ama ka imaanaya dekedda Berbera ee Somaliland. Ogeysiis ay shirkaddan laga leeyahay dalka Denmark ugu dirtay macaamiisheeda ayay ku sheegtay in hakintani ay durba dhaqan gashay isla markaana ay tahay mid ku meel gaar ah. waxayna dhaheen waxaan idin la socodsiinaynaa in laga bilaabo hadda isbedelo ku yimid jadwalka shaqada awgeed ay shirkadda Maersk si ku meel gaar ah u hakin doonto aqbalaadda shixnadaha cusub ee taga ama ka yimaada dekedda Berbera. Maersk ma aysan bixin faahfaahin dheeri oo ku saabsan waxa iska bedelay jadwalkeeda, arrintaas oo macaamiisha iyo ganacsatada ku reebtay su'aalo ku aadan sababta dhabta ah ee ka dambeysa go'aankan. si kastaba hakinta lama filaanka ayaa ku soo beegmaysa xilli uu jiro isbedel xoogan oo ku aadan isu socodka maraakiibta gobolka iyadoo shirkadaha isaga goosha geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadmeed ay la tacaalayaan carqalado joogto ah iyo isbedelo xawli ah oo ku yimaada jadwaladooda. burburkan ku yimi nidaamka gaadiidka badda ayaa sii xoogaystay tan iyo markii uu dagaalka Iran qarxay 28 Febraayo, taasoo qalqal gelisay marinada badda ee bariga dhexe isla markaana dhalisay cabsi horle oo ku aadan amniga marin biyoodka muhiimka ah. Khataraha ka imaanaya kooxda Xuutiyiinta Iran ay taageerto kuwaas oo ka dhaqdhaqaaqa badda cas iyo gacanka cadmeed ayaa sii kordhiyay culeysyadaas inkastoo Maersk ay go'aankeeda Berbera si toos ah ugu xiriirin arrimahaas.